Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaynu qaadanaynaa cutubka saddexaad ee fasalka sideedaad maadada xisaabta. Cutubkan waxaa loo yaqaanaa ama wuxuu ka hadlayaa tirooyin. Tirooyinku macnaha qaabka loo qoro, sida loo kala hormariyo, sharciyo la maro ama xeerarka la maro ayuu ka hadlayaa cutubka saddexaad ee fasalka sideedaad xisaabtiisa. Waxaan hore usoo baranay ama usoo qaadanay jibaarada iyo daba jibaarka tirooyinka. Halkan waxaan ku baran doonaa astaamaha tirooyinka iyo jibaarka tirooyinka. Intaas ayuu ka hadlayaa. Wuxuu ka hadlayaa astaamaha tirooyinka iyo jibaarka tirooyinka. Cutubkan wuxuu ka kooban yahay 3 cashir. Cashir koowaad waxaa la dhahaa astaamaha tirooyinka. Midka labaadna waxaa la dhahaa saddex jibaarka. Midka saddexaadna waxaa la dhahaa saddex jibaar iyada oo la adeegsanayo isreyn. Saddexdaas ciwaan ama saddexdaas cashir ayuu ka hadlayaa cashirkan. Haddaan qaadano cashirka u horeeya. Cashirka u horeeya waxaa la dhahaa astaamaha tirooyinka. Tirooyinka marka la qorayo waxay leeyihiin astaamo. Cashirkan haddaan si kooban oo hadalno wuxuu ka hadlayaa 2 xeer oo loo qoro tirooyinka. Xeerka koowaad waxaa la dhahaa xeerka kala hormarinta. Waxaa la dhahaa xeerka kala hormarinta. Midka labaadna waxaa la dhahaa xeerka hormargelinta. Marka aan qaadano marka xeerka kala hormarinta iyo xeerka hormargelinta waxaa laga hadlay bas waxaan aqaanaa tirooyinka ama xisaabtu inay tahay ku dar, ka jar, u qaybi iyo ku dhufasho. Marka labadan xeer waxay ka hadlayaan oo gooni ah ku darta iyo ka jarta. Ku darta iyo ku dhufashada. Ku darta iyo ku dhufashada ay ka hadlayaan. Shaqo kuma leh ka jarta iyo u qaybida. Waa labada xeer cashirkan ku qaadan doono oo loo yaqaano xeerka kala hormarinta iyo xeerka hormargelinta. Ayaga shaqo kuma laha u qaybida iyo ka jarta. Waxay ka hadlayaan oo kaliya waa ku dhufashada iyo ku darta. Marka xeerka u horeeya haddaan qaadano waxaa la dhahaa xeerka kala hormarinta. Xeerkan kala hormarinta waxaa la kala hormarinaa oo kaliya waa ku darta iyo ku dhufashada. Marka haddaan ku bilowno isugeynta ama ku darta, marka aan isugeynayno 2 tiro kala hormarintooda ma saameynayso wadarta tirooyinka. Marka rabno inaan isku darno 2 tiro ama wixii ka badan kala hormarintooda ma saameynayso ama waxyaalo u geyn mayso ama khaldi mayso jawaabta soo baxaysa ama wadarta marka tirooyinka la isku daro wadartooda ama jawaabta soo baxaysa wax dhib ah kuma keenayso. Haddaan qaadano tusaale waxaa la isku geey labadan tiro 3 iyo 4 adigoo adeegsanaya xeerka kala hormarinta. 3 iyo 4 ayaa isku geynaysaa adoo adeegsanaya xeerka kala hormarinta. Maxaan samaynaynaa marka? Waxaa la sharci wuxuu ah haddaan isku darno 2 tiro ama wax ka badan kala hormarintooda saameyn kuma laha ama wax saameyn kuma laha wadarta tirooyinka. Oo maxaa laga wadaa 3 oo lagu daray 4 haddaan dhahno 3 4 ku dar waa 7 sax waay. Haddaan ka waran 4 oo lagu daray 3 waa iyadana 7. Maxaynu sameynaa waan kala hormarnay oo kaliya. Marka kala hormarintaas la sheegayo waxaa waaye oo kaliya godadka tirada la isku daray ama la isku dhufanayo oo la kala hormariyo. Tusaale 3 baa horeysay marka haddana waxaan dambaysiinay 3 4 baa dambaysay waxaan soo hormarsiinay 4. Marka haddaan 3 ku darno 4 waa 7. Haddaan 4 ku darno 3na waa 7 waa isku meeshii. Mid kale haddaan soo qaadanay tusaale kale haddaan 4 ku darno 2 waa 6 sax waay. Haddaan ka waran haddaan 2 hormarsiino oo dhahno 2 lagu daray 4 iyadana waa 6 oo wax saameyn ah iyo waxyaalo ama khalad keenaysa ma jirto wadartooda 6. Mid kale haddaan soo qaadano 3 haddaan ku darno 9 haddaan ku darno waa 12 iyo 2. Haddaan 9 ku darno 3na ka waran iyadana waa 12 iyo 2. Iyadana waa 12 iyo 2. Marka kala hormarinta marka isku geynay tirooyinka wax saameyn ah kuma laha. Haddaan tusaale kale soo qaadano oo 3 god ah hadda 2 god baahan tusaale 3 oo lagu daray 2 oo lagu daray 4 ka waran waxay noqonay 3 2 ku darayna waa 5. Marka 5 haddaan 9 ku darno waa haddaan 5 haddaan 4 ku darno waa 9.
ayaa ka hor haddaan labada aan hormarsiino oo saddex gudaha soo gelino, laba oo lagu daray saddex oo lagu daray afar haddaan ka waran, ayadana waa laba saddex ku dar waa shan, afar ku dar sagaal. Sidoo kale haddaan afar hormarsiino ka waran oon saddexna gudaha gelino kadibna aan labada aan u dambeysiino, ayadana haddaan saddex ku dartaa afar waa toddoba, laba ku dar waa sagaal. Si kasta haddaad u rogto ama u kala hormariso waa isku mid jawaabta, sagaal baa kuu soo baxaysa. Kala hormarintooda wax faa'iido leh ma laha, marka jawaabta wadartooda waa sagaal. Xarafka wuxuu ahaa ba. Xarafka labaad waxaa la ka shaqeeya adigoo adeegsanaya xeerka kala hormarinta. Waxaan ka shaqeynaa sagaal oo lagu daray saddex oo lagu daray toddoba, waa sagaal oo lagu daray saddex oo lagu daray toddoba, waa saddex tiro oo isku darayo. Marka waxay noqoni sagaal haddaan saddex ku darno waa toban iyo laba, haddaan sagaal ku darno waa toban iyo sagaal. Hadda waxaa horeysa sagaasha, waxaa ku xigta saddexda, waxaa ku xigta toddoba. Ka hor haddaan saddex hormarsiino oo aan sagaal ku xigsiino oo aan toddoba u dambeysiino, ayadana waxaa noo soo bixi ma ka duwanaani jawaabta toban iyo sagaal ma ka duwanaani, maya kama duwanaanayso oo kala hormarintooda wax saameyn ah kuma laha wadartooda. Marka haddaan saddex ku darno sagaal waa toban iyo laba, toddoba haddaan ku darno ka waran waa toban iyo sagaal, ayadana toban iyo sagaal noo soo baxday. Hayba toddoba noo soo hormarsii, saddexda gudaha noo geli kadibna sagaalka banaanka u dambeysiin, ayadana waxaa soo bixi toddoba saddex ku dar waa toban, sagaal ku dar waa toban iyo sagaal. Si kasta oo kala hormariso waa jawaabtii oo toban iyo sagaal ah. Marka kala hormarintooda marka tirooyinka isku darayno wadartooda ama kala hormarintooda wax faa'iido ma laha oo saameyn kuma laha wadarta soo baxaysa ama jawaabta soo baxaysa. Haddii waxaa la haddii ba iyo ta ay yihiin tirooyin idil, ba iyo ta haddii yihiin idil ta ayaa tirooyin tusaale ba oo lagu daray ta ayaa waxay yihiin tirooyin idil. Haddaba waxay la mid tahay ta oo lagu daray ba. Maxaa laga wadaa? Macnaha ba oo haddaan kasoo qaadano labo oo tadan aan u qaadano saddex, waxay la mid tahay saddex oo lagu daray ta. Macnaha laba haddaan hormarsiiso ama saddex dambeysiiso waa isku mid oo laba marka ku darno saddex waa shan, saddex marka laba ku darno waa shan. Marka kala hormarintooda dhib ma laha, laakiin waxaa shardi ah inayna la ekaan eber, taana ayna la ekaan eber. Taas ayaa shardi ah marka isku geenayo tirooyinka kala hormarintooda wax saameyn ah kuma laha wadartooda ama isku darkooda. Qaybtaas waxay qaybta isku darka ama isku geynta. Haddaan qaadano qaybta isku dhufashada, haddaan qaadano ayadana waa sidoo kale. Marka aynu isku dhufanayno laba tiro tarantooda waa isku mid, kala hormarintoodana ma saameynayso wadarta. Aan qaadano tusaale isku dhufasho ayaa lahayd tirooyinka soo socda. Waxaan isku dhufanaynaa afar oo lagu dhuftay shan ayaan isku dhufanaynaa. Afar shan waxaan ku ogeyn waa labaatan. Ka war haddaan shanta hormarsiiyo dhaho shan lagu dhuftay afar, ayadana waxay noqonay ayadana waa labaatan. Kala hormarintooda ayadana wax saameyn kuma laha tarantooda ama isku dhufashadooda wax saameyn ah kuma laha. Xarafka ta waxaa waaye ka shaqeey ayaa lahayd tirooyinkan afar oo lagu daray saddex oo lagu dhuftay lix adiga oo adeegsanaya xeerka kala hormarinta. Ayaan ka shaqeynaa waxaan sameynaa marka horeysa horta noo soo qaad afar oo lagu daray saddex oo lagu dhuftay lix. Marka horeysa waxaan sameynaa waxaan isku dhufanaynaa labada tiro ee isku dhufsan, laba tiro ee isku dhufsan ayaan isku dhufaynaa. Afarta soo qaad horta kadib lagu daray saddex iyo lix aan isku dhufanaynaa. Saddex iyo lix markaan isku dhufano waxay noqoni toban iyo siddeed. Kadib markay toban iyo siddeed noqoto waxaan ku daraynaa afar. Markaan toban iyo siddeed afar ku darno waxaa noo soo bixi labaatan iyo labo. Labaatan iyo labo ayaa noo soo baxday. Haddaan u qorno ka waran saddex oo lagu dhuftay lix oo lagu daray afar oo afarta dambeysiino, ayadana waa isku mid waxay noqoni saddex iyo lix aan isku dhufaynaa waa toban iyo siddeed. Kadib waxaan ku daraynaa afarta waxay noqoni marka labaatan iyo labo. Waa isku jawaabtu. Haddaan u qortana lix oo lagu dhuftay saddex
oo lagu daray 4 ayadana waa isku mid oo waxay noqonaysaa 6 3 ku dhufo waa 18 oo lagu daray 4 waxay noqonaysaa 22 marka qaab kasta oo rogto ama ay u kala bedesho ama u kala hormariso waa isku mid oo jawaabta ama wadarta isku mid bay noqonaysaa saameyn kuma laha hal haddii ba iyo ta ay yihiin tirooyinka idil ba iyo ta haddii yihiin tirooyinka idil laba ba lagu dhuftay ta waxay la mid tahay ta lagu dhuftay ba ama ba lagu dhuftay ba iyo ta haddii yihiin tirooyin oo lagu dhuftay waxay la mid tahay marka waxay la mid yihiin haddii ba iyo ta la isku dhufto waxay la mid tahay ta oo lagu dhuftay ba hadda ta hormarisa ama ba dambaysiiso waa isku mid ama waxa ku kartaa ba oo lagu dhuftay ta waxay la mid tahay ta oo lagu dhuftay ba marka ba iyo taas waxay u tahay tirooyinka halka ba iyo taana ay la mid ahayn eber la mid ah eber ay noqdaan lama doonayo ay xarka